ومعتنتين مدحونا أحمد قرقور ومعتنين هاي كسمها رجالها دولة فدرالكا مدحونا ياشا دولة قبلية بودلاند galmudug hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland gudoomiyaha gobolka banaadir marwada koowaad golaha wasiirada heer federaal iyo heer dowlad goboleed taliyaasha ciidanka qalabka sida marti sharafta halkan nagala soo qayb gashay waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh إلهي ما محله وعاوة هالكان نوسو تقليه إنا سوي معنه وأنا وقف قال له كلن كان مناسبة عن كحرينه شركي كسب بلا ولو سمرب لما يستركي سنة عن هالكان كسو خطني كسو قبلني شري وأها حبكة يا حنانك دور شذ لو جلايو لبض كون يلباتن يلبض كون يلباتن يكون waxaan rabaa inaan u mahad celiyo fursaddan uga faa'iideysto halkan waxaan ka arkaa hooyaday hooyo waa mahadsan tahay fursaddan uga faa'iideysto si public ah inaan kugu mahad celiyo ilaahay ka sokow meeshaan taagnahay adaa ka mas'uula dhibba nala soo martay waadna soo korisay waxbaadna soo bartay hooyo waa ku mahadsan tahay qof walba halkan fadhiyo qof walba maqlaayana waa in waalidiinta saas la yiraahdo waa mahadsantihiin mar walbaba aan u duceyno intii dhimatay ilaahay inuu jannada siiyo kuwa noolna ilaahay caafimaad iyo cimri siiyo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweyne qoorqoor حقيقة مسؤولية الساري أو أودي سكوين أو آدي أدو علوس أو صدح جوجل ونودي جاي تاسو حي مجنسة السجا إيو بالوين تا قلمدوك إنه يهين حقيقة ضد صومالي ماذا كوين أو أهرية حلقة صومالية ورنتي كاجم هدعلنا يا ماذا حويني أديك إيو ددوينها جودهان galmudug khaasatan ama gaar ahaan samareeb waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynayaasha hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo runtii nagala soo qayb galay samareeb saddex oo runtii aan ku gaarnay meel waxay keeneen meel fog iyo iga soo kaxeeyeen waxay keeneen meel dhexe marmar waxaan is idhaahdaa ma waxay ku heshiiyeenba oo la yiri rag kala maqnaada ninkan odayga ah madaxweynaha afar sano wuxuu ku qaran waayay ummad u sheegay qof iyo cod hal mar ma oran karno hal ugu noqdo mid dadbane annaga soo dhaweeyay idinku na suga arintaas wuxuu u baahan tahay baarid maxaa yeelay markii aan xaq isku tagnay waxaan yiri walaalayaalow qol gala idinku xal ii keena xal runtii ummadda Soomaaliyeed u qalmi kara oo wanaagsan oo macquul ah ii keena waxay iga maqnaayeen 7 saacadood way ugu soo noqdeen waxay ii keeneen heshiiskii ka soo baxay samareeb 3 runtii waana ka naxay waana ku farxay oo waxaan ogahay labada kale oo maqan inay meel fog ka hadlayaan marka waxaan yiri intaan orod ku qaado bal wax kale la sameeyay maadeen waxa laga yaabaa inay istaraatiijiya waxay ka ilaalinayaan nuclear inay hal mar ugu tuuraan nuclear option waxaan yiri see ummadda uga gadaa hawshan ileen 4 sano waxaan iibinaynay aan ummad u sheegaynay shuruuc u sameeynay ummadda Soomaaliyeed aan maalin iyo habeen baan u sheegaynay in dalku uu gali doono qof iyo cod waxay yiraahdeen rag kale meesha joogan ma ogide intaan qaado oo ummadaada intaan u sheeg alxamdulillah wixina dhex marayna ummadda waa u sheegay waxayna ilaahay ummaddu inay intaas ku qanceen hadda marka imaanshaha halkan ay yimaadeen
sidoo kale aan sameeyay waxaan iri qol taga shantiina fariista ii keena wax ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacdo oo sharci iyo dastuur ku dhisan aniga raggaan moodaa inay la socdeen iyaga ugu horeeyaba taasa wax ugu abuurtay shaki u baahan in la baaro waxay ii keeneen wixii aan soo saarnay ilaa iyagu waa iga xishoonayeen saddexdii hore labadaas nin yay rabeen inuu hadlaan adigu idinku calaa ayi xaal hawshaasi runtii waxay ku dhammaatay wixii soo baxay waxaan idiin sheegayaa marka sababta looga tanaasulay ama aniga aan u tanaasulay qof iyo cod aan uga tanaasulay qof iyo cod runtii muddan ka shaqeyn waa xaqiiqa inkastoo ay soo kala dhex gashay xaalado adag oo COVID-19 uu ku jiro iyo baarlamaanka oo dhowr jeer fasaxyo qaatay waxa la isku hayo waxay tahay doorashada qof iyo codka ah sharci iyo dastuur aan ku dhaqanno iyaguna waxay lahaayeen waqtigeeda lama gaarin aan heshiis siyaasadeed galno waxaan yiri waa lagu dhaqmi karaa waana dadku waa u diyaar aan qaadano jaaniskeeda waxa laga yaabaa marka hore inaysan sidii rabay noqon laakiin aan wax ku baranno oo xisbiyadu hasbartaan guddiga maxaa la yiraahdaa doorashooyinka madax bannaan ha shaqo bartaan deegaanada la geenayo ha bartaan inay codeeyaan aan ku barbaranno marka dambe waxaa laga yaabi karaa inaan intii la rabay in ka badan aan gaarno waxay yiraahdeen xaaladeeda laguma jiro hadda waa in aan u diyaarino waqti ay u baahan tahay markay ugu yar tahay 2 sano ah 2 sano extension ahna waa wixii lagu xamanayay ee isaga fogow anigu waxaan ku taagnaa sharciga in la ilaaliyo iyo dastuurka oo aan u haysano maxaa la yiraahdaa legislation sharci baarlamaan ka soo baxay oo aan nagu wada saxiixnay iyo dastuurka iyo guddiga doorashada oo intaasoo sano loo tababarayay hawsha inay qabtaan arrintaasi runtii waa nagu fogaatay waa isku mari weynay saddexdii bilood ee la soo dhaafay wax kale kamayn hadlayn waxaan isu sharxaynay faa'iidooyinka ee leedahay qof iyo cod iyaguna waxay sharxayeen inaysan hadda aan la sameyn karin oo aysan diyaar ahayn oo loo baahan yahay waqti haddaba maxaa dhacay marka oo aan ku tanaasulay waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay oo ah in la kala tago oo ah in la rajo xumeeyo ama dadka rajo xun la geliyo waxaa ii soo baxday labo inaan kala doorto waxay kala yihiin in dalku uu kala tago oo wadajirkeennii uu lumo anoo ku adkaysanayo qof iyo codkii maxaa yeelay sharci baan ku taagnahay dastuur yaan ku taagnahay iyaguna ay yiraahdaan ka qayb gali mayno electionka oo waa qaadacnay waa boycott gareen macnaheedu waxay tahay Somaliland de awal bay gaar u taagneed markaana inaan waayo labadooda kaliya ma ahayn shantoodaba waa isla socdeen aan sheegay runtii waxa ay soo baxday marka aniga shaqada la ii idmaday aan u dhaartay oo la ii doortay inay tahay inaan dalka marka ugu horeysa isku hayo inaan ilaaliyo wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed markaas dawladnimo iyo doorasho laga hadli karaa laakiin haddii dowlad goboleedyadii qaar ay leeyihiin annagu ma galayno maxaan ka shaqeynay kala qaybin yaan ka shaqeynay tan labaad oo aan u tanaasulay waxay tahay shisheeye inuu soo faragashado uu soo farageliyo inaan annagu waxayna ha xumaato ha samaato annagu aan gaarno go'aankeeda mas'uuliyadeedana aan qaadano laakiin marnaba shisheeye inuu soo dhexgelin oo soo kaay soo jijiidin taasna inaan ka fogaano waxay ii keentay marka inaan qaato tanaasulka marka maxaa yeelay inaan dalka isku hayaa muhiim ah marka ugu horeysa uusan kala tagin waana runtii waxyaabihii muddooyinkii la soo dhaafay culayskii dalkan saarnaa
yahay dalkan in la kala fogeeyo dadkiisa la isku diro shisheeye uu ku dhex jiro dhibaato laga dhex abuuro xaqiiqatan waxaana ka shaqeynayay dalal shisheeye iyo shakhsiyaad dana gaara leh ha ahaadaan Soomaali ama ha ahaadaan shisheeye oo xaqiiqo ah muddooyinkii aan soo marnay intay rabta ha ahaato ummadda Soomaaliyeed ma aha wax ka yimid wixii dhibaato ah oo ka dhex dhacay waxay ahayd wax kor looga keenay dalalkaas aan sheegayana danay leeyihiin waxay tahay annagu in aan isku mashquulsannahay xasilooni darro siyaasadeed ee haysato dagaalo dhexdeena ay ka socdaan shabaab maalin walba ay ummadooda waalahooda ay qarxinayaan ee leynayaan annagiina xasilooni darro siyaasadeed ee na dhex taalo intaas hadday jirto dalalkaasi dhaqaale ahaan siyaasad ahaan iyo security iyo ciidan ahaan waa nooga hormarayaan waana nooga tagayaan sababta waxay tahay intaan dhib ku jirno xasilooni darro aan ku jirno beesha caalamku waa nala joogayaan dhaqaalaha sheegaysaan oo intooda badan aanan arag waa isticmaalayaan dhaqaalahaas kullina waxay soo marayaan dalalkaas markay soo maraana waxay isticmaalayaan bunuugtooda bangiyadooda waxay abuurayaan shaqooyin canshuuray ka qaadayaan ama fiisiya ka qaadayaan dhaqaalahaas yimid oo dalalkaas ku soo hormaray shaqo abuuray u tahay dadka u shaqeeya maxaan ku yiraahdaa NGO-yada dhanna waxay degan yihiin meelahaas degan yihiin guriye ka gateen ama guriye ka degan yihiin ama hoteelada ka degan yihiin lacagahaas haddaan xasilano waa joogsanayaan saas darteed dalalkaasi dan uguma jirto inaan anagu isfahmno oo aan heshiino oo Soomaaliya degto waxay ku waayayaan billions of dollars ku waayayaan saas darteed haddii aysan iyaga toos ugu jirin waa ku faraxsan yihiin inaan haysano haddaysan iyagu toos ugu jirin siyaasad ahaanna waa sidaas marka annagu aan dhibaataysannahay waa inaan u tagno iyagii oo aan weydiisano inayna heshiisiiyaan inay adduunka tusaan Soomaaliya inay ka sarreeyaan ka fiican yihiin ay ku dhex jiraan oo ay heshiisiinayaan inay tusaan marka intaasna waxay ku helayaan leverage iyo ku helayaan adduunka ay uga helayaan ciidan iyo security waa sidaas in annagu waa tabar darannahay oo badaheenii maxaan ku yiraahdaa kalluunka laga xadaya maalin walba ama qashinka lagu daadinayo ama xuduudaheena ayna difaacan karin waa qayb ka mid ah haddii stability aysan jirin dhaqaale ma jiro siyaasad ma jirto ciidanna ma jirto intaasna waxaa aan uga bixi karnaa annagoo isu tunaasulnaha yaan uga bixi karnaa taas yaa ii caddaatay marka aniga in aan ogolaado shisheeye inayna soo dhex galaan in xaaladihii aan ku jirnay oo xasilooni darrada ahayd inaan ku jirno in marba meelna looga yeero oo la isku dayo in nala heshiisiiyo hadda annagaaba heshiin karnaba intaan nala soo dhex gelin hasugu kay tagaan dhib ma laha laakiin waxaan u shaqeynaa maslaxadda shacabka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyaguna runtii daacad iyo ka tahay wanaag iyo runtii maxaan ku raahdaa in dalkan hore loo mariyo runtii daacad iyo ka tahay laakiin waa la kala fikrad duwan yahay waana normal wax caadi ah weyn la kala fikrad duwanaado marka waxaan idin sheegi inaan nala qaadataan maxaa yeelay waa waxaan u aragnay inay tahay dan hadda birrina aan u diyaar garowno road map aan u samaysano oo aysan jirin meel laga soo noqdo hadduu Ilaahay yiraahdo qof iyo cod 2024 hadduu Ilaahay yiraahdo laakiin laga bilaabo maalinta electionkan uu dhamaado cidii Ilaahay u sakhiro ama cidii Ilaahay ku guuleeyaba ay la bilaabaan hawshaas la bilaabaan road mapkaas waa loo baahan yahay in mar dambe marmarsiyo aan la gelin oo aysan imaanin inay isu bahaystaan ninkii dhankan ka taagan baarlamaanka sharafta badan runtii muddo badan iyo ka soo shaqeeyeen hawshan waanu u soo dhabar adeegeen in dalka la gaarsiiyo qof iyo cod waana ku wada shaqeynay waana ku wada jirnay iyaga naftigooda inay u daneeyaan dalka inay dadkooda u daneeyaan inay maslaxadda xasiloonida u daneeyaan oo wixii annagu aan keennay ay nala qaataan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan u mahadcelinayaa ugu dambeys guddiga doorashooyinka
madax bannaan oo ay guddoomiye ka tahay Xaliim Yarey runtii shaqo fiican bay qabatay guddigu shaqo fiican ay qabteen 5 sano iyo 6 sano ku dhawaad iyo runtii u tababaranayeen dhaqaale badan oo ku baxay way aaminsanayeen inay qaban karaan election kan ama doorashadan laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa iyagana in waqtiga loo dheereeyo si ay kan kale u qabtaan iyagoo diyaarsan wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh